السلام عليكم ورحمة الله. دور رمضان waxaan isku dayay waalidiinta Soomaali qaar kamid oo Soomaaliya la jooga inaan wareysto ilmahooda ma Soomaan ama may waajiran waalidiin dhahan ilmaheena waa Soomaan laakiin inta ugu badneed waalidiinta waxay dhahay ma ma Soomaan ayagoo tiirsanaya xadiidka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhahayo rufi'a al-qalam an thalath النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق. حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحو شيء سد حالات وبن آذنك اللي قربين عباده وفك الجيف انتو قصوا كعاية المهير انتو قارة مرحلة دقان قاركة يقفك حنوصا انتو وارن انتو مير كلهانايا تاسوحي كنت انا ويديو ولادين تلفت الكود مسكو دايدين qaar kamid ah wax in ilmaha Soomaana weydiiyay qaar kamid waxay dhahay ay ku hadlayeen afka naxariista ma wallahi jawi waa kulul yahay saacadahana waa dheer yihiin ilmahana waxay u baahan yihiin nafaqo dhinac kalena waa jireen waalidiin culeys iska saaran dhahan may birim ku weynaado oo akhri aayaadka iyo axaadiista asaga dan u Soomaaliya siirada laftirkeeda marka akhrina khaasatan siirada saxaabada gaar ahaan waxa arkeena saxaabada ay rasuulka la joogeen oo xadiidkaas maqleen ilmahooda waxay u dadaal waxay siin jireen aad weyn inay ilmahooda Soomaan hatta si qaarkood dhahan waxay u sameyn jireen waxay ku cayaaraan ugu alowsiyaan cuntada ama biyaha taas waxay tusinaysaa soonka hadduu waajib ahayn xataa oo laga rabin ilmaha inuu cunuga soomo waa tarbiyad waxay ka mid tahay tarbiyada sida ognahay soonka wuxuu soo hoos imaanaya tarbiyada qaabka diiniyeed ama dhinaca diiniyeed tarbiyada waxay u kala qaybsan tahay ama waxay u kala baxdaa tarbiya diiniyeed tarbiya dhaqan tarbiya maskax tarbiya dhaqaale tarbiya akhlaaq iyo inta ka badanba ramadaanka ama soonka wuxuu soo hoos imaanaya tarbiyada diiniyeed tarbiyadan saa ognahay waa cunuga inuu waa wax in la barto lagu tababarto la sameeyo tacliim تدريب تطبيق إنه عنيقة مركو هرون له هذا أقون توبر هدو تحال قربا إنه وحان سكودا إنه طبقه هذا إنه علمه إنه وايرهن مسومي كران ومقارن تصالة كران سوق هذا المها لفتر كان كهضني وايرهن مكسو قارن مسو قارن هير أم حلي يفهمي كران دا كهضني إنه تربية مسكحة ilmaha markii yaryarina iskool geenayno oo iskool ku celcelinayno oo la dadaalay ilmaha ma gaar ma fahansana waxa la yaabaa iskoolka baka geenis inay dib ku tahay inuu diidayo haddii waalidkaas weydiiyo waxa la cuniga ma gaarin wili xilliga uu fahmi karo qiimada cilmiga maxaa ugu dhibeysa iskool inuu aado waxa leedahay hadda wax ma fahansana laakiin biri si ugu shaleen maalmaha kamid wuxuu garan doonaa qiimaha dadaalkan aan bixinayo soonkana waa intaas hadda cuniga la siin hadda tababar iyo laga dalbay inuu wax tabbaqo hadhowta maalintuu gaaro soonka waxay u noqonaysaa wax aad u dhib badan adigna hadhowta wuxuu ku saaraa dambi weyn waxna hooyaday aabahay migu soo tababaran waxa laga yaabaa sanadka koowaad iyo sanadka labaad umku asagoo laga rabo xilliga soonka in wax badan ka dhumaan marka maanta anaga ma ka hadlayno ilmaha inay Soomaan bisha dhan laakiin inay waalidiinta u diyaar u yihiin ilmaha inay tababar geliyaan dhinaca soonka inay Soomaan ileen duhurka maalinta labaad ileen casarka maalinta saddexaad ileen maghribka ka hor 10 sano markuu gaaro sidii salaadina la xisaabtamo oo laduu salaada laga rabo inuu Sooma inuu tukdo inuu soonka waxa laga rabaa ugu yaraan 20 cisho inuu maalin soomi karo soonka wuxuu u baahan yihiin inaa siin ixtiraamka tarbiyada sida u qiimeynina dhinaca waxbarashada iyo dhinaca akhlaaqda kale soomkana iyo cibaadaadkan wuxuu u baahan yihiin inaa dhinacaas ka weyneyno ugu dambeyn aad ba u mahadsantihiin